jaamacadan Queen's University Malfis ee dalka Britain warbixin bay soo saartay warbixinta waxay ku tilmaantay inay tahay daraasaad marka u horeysa ma ka jawaabi kartaan cidda daraasaadaas inay ku samayso beeraheena u fasaxday ama u wakiilatay jaamacadda beeraha kuma sameeyeen waxa ku sameysay dalagyada cuntooyinka ku sameysay research buu ahaa qof maamulna sameeyay aduu waxa sameeyay jaamacadaas ayaa sameysay jaamacadu waa xoro oo baahna ogolaansho oo baahna ila tahay cilmi baaris madax banaan weeyo sameyn karaan laakiin qaabkay u sameeyeen iyo natiijada ka soo baxday labadaba wasaaraddu iyo khubaradeedu way diideen waa saxafadeed baan ka soo saaray maxaa yeelay afar khalad baa ku jiray daraasadaas horta sambaliska ay qaateen waxay qaateen 2015kii sida ku cad qoraalkooda waxayna ka qaateen goobo wax lagu gado xamar kamid ah waxay sheegeen inay qaadeen tan labaad waxay qaadeen oo waqtiga aad u fogaan natiijada wax soo saareen 2019kii bay faafiyeen waxay kaloo sheegeen inay sambalada qaateen inay ahaayeen qamadi iyo galeyda cagaarka ah labadaba Soomaaliya ka baxaan qamadina Soomaaliya ka baxo hadda ayaa waxa la sheegay wajaale sarreyn tijaaba lagu beeray oo dhawaan aadey laakiin xilliga ay sheegayaan sarreyn Soomaaliya ka soo baxay ma jirin galeydan cagaarka loo yaqaan waa midda xilligu keenaan mid Soomaaliya ka baxda ma aha khaladka kale wuxuu ahaa oo meesha ku jiray inay yiraahdeen Soomaaliya dhamaan baar Soomaaliya ma baarin xamar bay ka qaadeen kaliya goobaha ay beeruhu ku yaalaan iyo deegaamada ay wax ka soo baxaan kama aysan qaadan arinta kale oo runtii khaladka ay ku jirtay waxay ahayd inay yiraahdeen inaysan cadayn cid kala shaqeysay iyo gacan ka heleen waxa soo dhan way ka aamuseen anoo marka dad runtii ku takhasusay aflatoxinka ayaa ka jawaabay markii dambe waxa ma helay nin kamid ah raggii daraasada sameeyay jaamacadda Belfast jooga ayaa khubarada wasaaraddu la xiriireen wuxuuna noo sheegay in review ku sameyn doonaan daraasada hore ay soo saareen aflatoxinku markiisa waa cudur jira oo sun maaragtay fungal ah oo fungus ah ku dhaca abuurka markii si xun loo kaydiyo qoyaanka ayuu ka dhashaa markii wuxuu qoyaan si xun loo kaydiyo wuu jira khatartiisa ma inkareyno wadamo badan oo darisa Kenya kamid tahay ayaa saameyn aad xun ku yeeshay inaga laftigeena meelaha laga isticmaalo bakaarta inka soo daan aad loo isticmaalo laakiin meelaha dhulka hoostiisa lagu aasto abuurada ama dalagga soo baxa lagu kaydiyo hadii si xun loogu kaydiyo wuu ku dhalanayaa marka khatar aan sahlanayno ma aha wasaaraddu runtii waxay ka sameysay arrintaas inaan aad u hubino waxaan la shirnay oo u tagnay isbitaalada ugu weyn magaalada Digfaar oo kale annagoo wareysanayna aflatoxinka dadka beerka ka jiran iyo xanuunadaas xanuun ku dhacaan waxa ay ka baaraan aflatoxinka inuu ku jiro ay noo sheegeen cudurrada ay ka baaraan markii jira ay ku arkaan qofka ku dhacday waxa ay ka hubiyaan in aflatoxin ka mid ah especially dadku ay yihiin dadka imaan dhulka beeraleyda meelahaas wasaaradda ahaan marka waxa anaga qorshe noo ah oo inaan la dagaalano kaydka sida khaldan dhulkooda lagu kaydinayo in loo keeno beeraleyda agab ay ku kaydsan karaan wax soo saarkooda bahalo waaweyn oo silos ah ama bahalo loogu talagalay jawaanada laftooda hadda kintaalo waaweyn oo fiican oo protective oo aad u fara badan baa hay'adaha samafalka ku qaybiyaan dhulka beeraleyda laakiin inaan xoojino arrintaas oo aysan dhicin raashin si xun loo abuur wax soo saar si xun loo keediyay aflatoxin ku dhacday in qof marka xanuun ay u soo gudbiso arrinta marka hay'adda cilmi baaristeeda waxyaabo badan oo daloolaha ka muuqday laakiin taas oo ay tahay anagu waxaan aqoonsanahay ma inkareyna xanuunka inuu dhici karo ama jiraba laakiin qaabka buubuuniska oo warbixinta loo jeediyay ayaa waxay qaab argagax leh oo aan la aqbali karin waa tahay haddaad xiriir la samayseen qoladii daraasaadkan samaysay jaamacadda Queen's University ka tirsanaa ma nala wadaagi kartaa ama shacabka Soomaalida ma la wadaagi kartaa su'aalaha aad weydiiseen iyo waxay jawaabaydiiseen hadday qanciyeen horta waxaan ka soo dhaafay qodobka afraad oo qaladaadka daraasada aan ku haysan wax kamid ahaa daraaso shaybaar ilaa 2016 lagu sameeyay galeyda Soomaaliya ka soo baxda oo natiijadeeda aan haynay ayaa ay khilaafaysa arrintan oo WFP ay sameeyso
oo saybaar casri dibadaha lagu soo baaro galeeda Soomaaliya oo kii u dambeeyay October 26 naloo keenay natiijadiisii oo kulligood muujinaya aflatoxin level-ka galeeda Soomaaliya inuu aad uga hooseeyo kana sheegaya ama uu ku dhaweyn ba khatar ba inuusan lahayn meesha laga rabo 5 wixii ka badan dhibcood khatartu tahay galeedina kan ugu badan inuu 3 ama 4 ah kuwa inta wada badan ay halka hooseeyeen waa saybaar walaal iyagu waxay ku sameeyeen 150 sambal say sheegeen laakiin annaga ka sameeynay kii aad u dambeeyay 26 October la sameeyay 1 metrik tan oo galey asamba laga qaaday buu ahaa oo lagu soo sameeyay saybaarka casriga oo ku yaala Kenya oo UN ku aqoonsan yihiin levelka UN ka marka tan ninka oo aan la xiriirnay oo qolada cilmi sameysay interview anoo kama qaaday laakiin waxa weydiinay sida u sameeyeen iyo waxa ku kalifay iyo natiijada khaldan tahay waxyaabay aan find out ka sameynay ma u dirnay wuxuu noo sheegay inay dib review ku sameyn doonaan ama ay mid cusub sameyn doonaan mid cusub inay furo doonaan cilmi cusub oo Soomaaliya ayna la soo xiriiri doonaan khubarada la xiriirtay wasaaradda ka tirsanaa waa tahay markaas oo ku jiro nin isaga soo shaqeyn jireen jaamacadda laftigeeda kala shaqeyn jiray oo ku ka mid yahay waa tahay hay'adahan ay ka mid tahay WFP hay'adda cuntada adduunka barnaamijka cuntada adduunka ma waxaad ii sheegtay in lacag ilaa 4 milyan oo dakhliga ay ka heleen dadka beeraleyda ah kadib markii aad ka iibsadeen kadib markii aad idinku aad ku tirtirsiiseen inay cuntooyinka dalagyada gudaha ay gataan laakiin marka la eego lacagta la siiyo ama cuntooyinka la siiyo qiimahooda sida inoo sheegaan WFP waa mid aad bay u kala badan yihiin marka boqolkiiba xataa 25 ma ku qasbi kar weydeen in cuntooyinka Soomaaliya ay soo galiyaan gudaha ka iibsadaan horta waxaa humanitarianka gargaarka bini'aadanimada dawladuhu ma faragashan karaan oo waa wax sharciga humanitarian looga adduunka ayaa maamula oo dawladdu hay'adaha humanitarianka shuruucda waxay qabanayaan waxyaabahaas lama faragashan karo laakiin waxaan ku leenahay inaan ka codsano ama ku dhiirigelino waana mid hadda ay nala qaateen iyagoo hadday fan u helaan way iibsanayaan ma diidayaan haddii raashin bay u baahan yihiin qolo wadan raashin ugu deeqana dama diidayaan laakiin hadday lacag soo helaan way iibsanayaan raashinka inay iibsadaan marka dalalka qaar baa raashin bixinayaan 10,000 oo metrik tan inay iibsadaan bay naga balqaan sanadkii haddana way fiican yihiin ilaa 8,000 bay waxay iibsadeen sanadkii hadda tagay waxay iibsadeen ilaa iyo 8,000 bay iibsadeen marka waxaan isleenahay way ku dhow yihiin meeshii intay ballan qaadeen laakiin wadamada qaar baa raashin cadaana siinaya qaar baa lacag siinaya waxay ku xiran tahay deeq bixiyaal say u helaan iyaga soo weeraadinayaan marka dawladdu laakiin inaan ku tirtirsiino oo ku khasabno inay waxaan kaloo ku khasabnay hadda oo shaqeeya isla WFP si gaar ah raashinka ay gudaha ka qaybiso dadka ay kaararka ka haysta dad baa waxay ka haystaan kaarar raashin oo kaaris cuntada ah oo raashin lagu siiyo ilaa 900 oo 250,000 oo qoys baa ka haysta kaararka marka lacagta ay ugu shubto oo raashinka ay suuqa ka gataan meel wax ka gataan dad 900 oo dukaan oo WFP kaarar ay siisay ka gataan Soomaaliya oo dhan ah waxaan ku heshiinay inay raashinka ay iibsan doonaan dadkaas boqolkiiba in ka mid ah inay noqoto raashin dalka soo baxay wadaniga uu noqdo oo qof hadduu soo ku iibsan uu wax kale ku iibsan kaarku ka xirmayo taasna waa e-shopping malaya e-shopping bay u yaqaanaan inaan marka waxa marka target gareynaa lacagtaas inay boqolkiiba 10 xitaa hadii beeraleyda aad waa 10 milyan oo dollar lacag meelahaas weeye in gudaha laga iibsado waliba waxay ka codsanayeen inay u sameeyaan dhiirigelin oo incentive qofkii raashinka gudaha gata inuu lacag u baaqanayso waa tahay dhawaan waxaa soo weeraray wadanka bahalkan la yiraahdo ayaxa beeraha kaliya ma weerarin de bay'ada oo dhan iyo dhirta iyo waliba de wax kasto maartay dhirta cagaaran oo dhan buu weeraray marka hore bal wasiir waxa tafaasiil ka siisa dadka Soomaalida waxa keeni kara inuu ayaxu sidoo kale duulaan soo qaado adoo bal dhinaca cilmiga ka fiirinaya talabaadna maxaad ka qabatay ayo horta waa aafooyinka la isku umadaha lagu helayo kamid ah quraanka uu ku jiraa ibn Israa'iil markii la rogayay ayax baa kamid ah wixii lagu rogay ayax iyo raax iyo waqtiga quraanku sheegay marka ayaxu waa xayawaan aafa runtii waxay khubarada ku takhasusay noo sheegeen ayaxu markuu koro oo baalal yeesho
wuxuu goyn karaa maalintii 150 kilomitir goyn karaa soo de malaayiin daruuro oo kala ah 150 kilomitir buu goyn karaa wuxuu awoodi karaa inuu cuno raxantii ayaxa wax cuni kartaa bay yiraahdeen 35,000 oo qof wax cuni lahayd buu cuni karaa maxaa yeelay ayaxu wuxuu cuni karaa intuu leeyahay cunto leeg buu cuni karaa ana waa qofka bani'aadamka oo la yiri wuxuu cuni karaa cunto isaga miisaankiisa ah ka war marka ayaxu xayawaan aafaha runtii wuxuu naga soo galay sida loo yahay dhulkan khaliijka ayuu ka yimaadaa Yemen buu ka yimid Sacuudiga Saharaas ka yimaadaa waa desert ayax waxa weeye ayax lama deegaanka la yiraahdaa desert locust ayax lama deegaanka wuxuu ka yimaadaa dhulkaas lama deegaanka Yemen buu ka soo galay waqooyi ka soo galay dhulka Sanaag xeebaha ka soo galay saas uu ku soo socday meel baa mar buu soo marayay ilaa ay gobolka dhan buu hadda ilaa Eritrea uu joogaa ilaa Kenya hadda kii anagana dhaafay Kenya hadda galay annagu wasaarad ahaan qayladaan baan runtii sameynay abiil oo in musiibada ayax ay wuxuu hadda uu dhulka uu effect gareeyay 100,000 oo hektar dhulka weyn badan way Soomaaliya gudaheeda intuu soo gudbay dhulka wabiyada Soomaaliya Puntland iyo Galmudug ilaa 70,000 oo hektar dhul ah ayuu markii hore ahaa haddana wuxuu u gudbay dhulkii kale oo koonfurta ahaa hadda lagu qiyaasay ilaa 100,000 oo hektar dhul ah inuu raad xun kaga tagay hadda khatartiisii ayaxii xoogiisa hadda wuuna dhaafay Itoobiya galay iyo Kenya ayuu u gudbay laakiin waxa hadda u diyaarsanahay koronkorooyinka uu ka tagay iyo waxantii uu aasay ayaa dilaacaysa wasaaraddu 9 degmo oo ah degmooyinkii ayaxu markii hore ku degay waxaan u dirnay qalab ka dhulka lagala diriro oo qofka buufinaya isku difaaco iyo suntii iyo haamihii sunta lagu buufin lahaa waan u dirnay 9 degmo 6 galmuduga iyo 3 ee Puntland haddana waxaa loo dirayaa South West meelo kamid ah Shabeellada Dhexe Hirshabeelle iyo galmudug meelo cusub hadda oo xiraala iyo hadda uu soo guuray cusub kuwaasna waxaa loo dirayaa iyo gado meelo kamid ah ilaa bari baa loo dirayaa qalabkaasi si koronkorooyinka dhulka ku jooga kon hawada maraya diyaarad baa lagu buufin karaa laakiin kan aanu hadda buufinayna waa wixii dhulka yaalay ayaxa soo koraya carruurta midka ah iyo ogxanta iyo waxaas koronkorooyinka dhulka jiifa intuu sakicin ka in la sumeeyo waana la sumeeyay runtii waa la gubay waa la buufiyay cadaado iyo bandiradle iyo balanballe iyo abwaaq iyo galsoor iyo dhulkaas oo waa laga buufiyay aadna waa koronkorooyinka waa suntaas si fiican bay u leysay xaggan waqooyiga iyo ama xagga Soomaaliland iyo Puntland iyo iyaga waxuma loo dirin iyaga waa u diray Soomaaliland horaa waxa uga furnaa xafiis ayaxa oo faw qalabaysay baa ku yaalay qalab fiican sunba way taalay laakiin waxa dadku ma qaban ma way ku qabteen dhulka waafay waa boorame awdal meelo kamid ah iyo hargeysa uu dul maray kuma degin tog dheer waa meelo badan baa meelaha laga sheegay wasaaradoodu inay ka shaqeysay baan rajaynaya qalab waa loo geeyay iyo haamihii iyaga ka horeeyay Soomaaliya kale ayax markii halkaas ku soo horeeyay hadda laakiin xoogiisu ayaxii quwadiisa hadda uu gudbay Kenya galay Itoobiya laakiin waxa khatar weyn ka soo socota oo aanu hadda u diyaar garoobayna dhashi iyo ayaxtag in la reebo taliyada wixii ku aasay ayaa halkii ayaxa oo female ah haweena maandadig ah wuxuu dhigi karaa 300 oo xamood uu ka tagi karaa oo 300 ayax noqonay 300 ayax uu dhali karaa halkii bin koronkorada waxa marka hadda waxaa noo sugeynaa noo maqal aan dalbanay qalabkii baabuurtii waaweynoodu haamo ku xirnaayeen oo casri ah hadda wasaaradda iyo deeqbixiyaasha asla dalabnay dhawaan noo imaan doona jilaad waxaan ku talagaleynaa in dhulka hadda maray ayax waxaan filaynaa ayax cusub ka dhalan doono oo wixii ku aasay marka in la buufiyo oo qalab waaweyn ee baabuur aan hore u jirin maxay ayaxaan Soomaaliya yimid ama noocan hadda ayaxa 15 sano ma imaan ayaxaan kale noocaan kale wadan iyo xajmiga leh gobolka dhanna waa wax ka jira 2007 markii Kenya uu aad ku baabi'iyay ayax anaguna wuu soo gudbin way wasiir waxa rabaa arinta ku saabsan ayaxa waxaad jirtay heshiis aad la gasheen ama aad ku noqoteen xubnimadii Soomaaliya ka jirtay geeska Afrika la dagaalanka maxaa ka faa'iideen lacagna waad bixiseen waliba deyntii leeyahay kulaha waad bixiseen maxay idii qabteen waxay noo qabteen dadkan ayaxa ka shaqeynaya iyaga tababaray
oo tababarka ayax macno maadaama shaqaalaha ayax la diray wasaaradda aysan hore u tababarnayn iyaga tababaray waxay diyaar noo leeyihiin diyaaradii buufilis inay keenaan cilado xoogaa insuransiga iyo gaaska diyaaradahooda ayaa waxay diyaarada qadiim ah marka gaaska isticmaalayaan ayaa Soomaaliya oolin gaaska AV gaaska la yiraahdo oo diyaaradaha shidaalkan kuwii hore oo weeyo adduunka hadda ka dhamaaday cilado farsamo ayaa hortaagan laakiin diyaaradihii buufin lahaa ayaa insha Allah marka ay xaanada cusub soo kici doono meelahaas in diyaaradihii noo keenaan maarjeento inay waxay nala aasaasayaan xarumihii ayaxa ee noo sameyn doonaan nagala shaqeyn doonaan marka runtii waxaan ugu biirina waxay long time qorshe ah oo qorshe fog oo ayaxa loo diyaarinayo systemka lagu dirin lahaa xarumihii dadka soo barnaa qalabkii diyaaradihii kulli inaan qayb ka noqono maadaama aan ka maqnayn horena aanan ugu jirin waa tahay wasiir gabagabadii barnaamijkan ku soo dhawnahay hadii baydmo arrimaha ugu muhiimsan ee Soomaalidu ay rabto inay wax ka ogaato maadaama wasaaradda aad inta badan waa wasaarad bulsheed oo yaani waxyeelay dalka waliba wax qabadka ugu weyn ay qabato dadku inta badan wasaaradaha kale aad ugu mashquulaan laakiin wasaaradda siyaasadeed ma waa wasaarad shaqo maalin walba qabato shaqaalaha aad haystaan iyo khibrada haystaan waxa jirta inay warbixin soo saartay hadda ka hor daraasaad oo ku saabsan walaac ay ka muujiyeen in labadan wabi Shabeelle iyo wabiga la yiraahdo Jubba ay guri rabaan oo ay jiraan biyo xidhanada ama dabcan ay biyo xidhana Ethiopia sameysana soo kale inay walaac uu ku jiray marka waa maxay arintaas waxa wasaaradda ay ka qabatay hadii waxa ugu weynaysan ugu codad daraasad maxay ahayd ama ay daarneed arintaas saameynta ka dhalatay mashaariicda Ethiopia laga sameeyay ugu Shabeelle si gaar ah iyo Jubba labada Jubbana xagga Kenya iyo Ethiopia labada soo maraa ka yimaada waa arin khatar oo soo socota oo hoos u dhac weyn oo ku yimid laakiin anaga waxa inoo weheliyay wabigii oo rudii dayacan oo aasmay biyihiisii ay fatahaad almost 60 ay noqon inuu fataho maadaama uu aasan yahay ciid badan ay gashay markii aanu ciladaha xageena aan iska xalino wabigii la qodo fatahaadii Soomaaliya fatahaadiisa la yareeyo markaas ayaynu ogaan karnaa levelka hoos u dhaca ku yimid wabiga laakiin waxa marmo doonta in dhaaman badan laga sameeyo Ethiopia saameyn ku yeesho wabiga Shabeelle waana arintaas sababta madaxweynuhu magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya arinta wabiyada oo hadda shaqeeyo oo lagtaas fatahaad bay ku saar ma agaasima madaxtooyada waa arinta wabiga Shabeelle iyo hoos u dhaca ku yimid biyihiisa guddi farsamo oo khubaro ka socota wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha iyo agaasima madaxtooyada Tusanuur ayaa ku xiriiriye ka goorma la magacaabay waxa la magacaabay sanad iyo siyaado ka hor baa la magacaabay wayna shiraan waa dhawaatay shirayeen waxa qorsheynayaan in Ethiopia tagaan annaga Ethiopia marna tagaan wasaaradooda kala hadalnay waxay leeyihiin iyagu anagu wax weyn oo hadda asleenahay saameyn buu yeeshay aan ku sameeynay ma jiro hadii jirtana waxaan diyaar u nahay inaan ka wada hadalno inagu laakiin ciladaha xageena ah oo fatahaada wabiga iyo wabiga aasankiisa waxa inaan xalino marka hore guddiga qaran oo khubarada ah oo madaxweynuhu magacaabay way jiraan iyaguna shaqo fiican haya runtii oo water diplomacy iyo ka shaqeynaya in la kaashadaan hay'adaha maalgeliya mashaariicda dhinaca wadamada kale oo upstreamka wabiga biyuhu meesha koray biyo ka imaanayaan in hay'adaha World Bank iyo Jarmalka iyo wadamada maalgeliya in hataa ay la shireen shaqo fiican bay guddigaas u hayaan oo arinta diblomaasiyadda biyaha khusaysa wasleenahay annagana waxa la ka rabaa inaynu wabiga horta inta noo timaado inaynu xakameeyno ka faa'iideysano dayaca iyo fatahaadda ka ilaalino waa tahay dawladda Talyaanigu dhawaan waxay sheegtay in lacag ay ugu tala gashay in biyo xidhano lagu sameeyo wabiyadan fatahaya laga hortago ay dawladda Soomaaliya qaadadii arintaas maxaad kala socotaan in kastoo ay dawladii hore ahayd ka wasaarad ahaan ma dawladda ay ahayd dawladda say iyagu macnaha mashruuc dhawaan buu ahaa laakiin lama diidin mashruuc la diiday ma jiro mashruuca waxay meesha deeq bixiyaashu soo yimaadeen SDRF ayaan geynay halkaas Talyaanigu ka balan qaadeen kadib muddo aan naba soconay oo ay waxay lahaayeen rajaan qabnaa waa sugeynaa markii dambe la helay anagu u gudbinay mashruuca u gudbinay intii ay iyaga iyo qoliyada la fulin lahaa ay daba socdeen ayaa waxa sanad xisaabaad ku soo galay laakiin lacagta ma dhiman way taalaa
waa ku soo wadala wadaagi doonaa sawirradii markaan ku wareejinay mashruuca waana la bilaabi doonaa hadda feasibility-giisa waa la soo dhameeyay qoraalkiisa waa la dhameeyay marka lacagta wali waa loo ogolay waa talacad ma dhiban ma taala January waa la bilaabaya insha Allah okay ugu dambeyntii arinta fatahaad way soo noqnoqotay masiibayna noqotay dad baa ku dhimanaya dhaqaale badan baa ku burburaya magaalada hadir beledweyne oo kale waxa ka dhacay waa la arkay dad badan way ku dhinteen dad badan way ku barakaceen qorshe degdeg ah oo wax lagaga qabto hadda xil roobaad baa suuragal ah in kasta roobka Ilaahay mar walba keeni karo laakiin xilliyada roobka la sugayo hadda xitaa wax koon baa ka haray bisha Abriil oo kale marka waa maxay diyaar garowga baahsan ee idila gudboonayaad sameeyeen hadeerto artaas masiibo horta weyn fatahaad oo dhibaato badan geysatay waxaan ku soo ururaysaa intaan ku sheegay webiga inkastoo hadda daraasadii khubaradii loo diray beledweyne ay cadeeyeen fatahaadu inaysan ka imaan webiga kaliya ay ka timaado togag badan oo beledweyne dhinacyo kala duwan ka soo gala oo webiga ahayn webiguna qaybta ugu badan webiga ay ka timaado laakiin fatahaadii u dambeysay hadda dhacday waxa ay sheegeen khubaradii fatahaadaha tagay inay jiraan biyo kanaalo fara badan iyo togag magaalada ka soo gala meelo badan waxay ugu fiican oo hadda daraasada la diyaariyay hadda xafiiska wasaaruhu ay isku dubarideen iyo wasaaradaha technicalka oo dhan waa in webiga laga shaqeeyo oo haddana waa socotaa meelaha qaarka shaqooyinka waa laga bilaabay mashruucaana wuxuu diyaar u yahay January aakhirkeeda ama dhexdeedaba in la fuliyo oo meelihii la saamiyay oo loo arkay khatarta u badan ee ka timaado in degdeg loo dhiso oo loo celiyo waa artaas arin runtii aad iyo aad looga shaqeynayo weeye wasaaradda waraabka madama nahay wixii naga aadan diyaar baa u nahay way wasiir su'aasha ugu dambaysa waxaan rabaa nin dhalinyaro baa tahay wasiir baa tahay fursad fiican baad haysataa oo mas'uuliyad weyn ah oo dalkaaga maanta wax ugu qaban karto waxaan rabaa adoo adigu chance-kaaga qaadanaya inaad ii sheegto 2-3 kelmadood dadka ku daawanaya aad u sheegto oo doonayso in aad wasaaraddan adoo masalaya aad u qabato bulshadaada iyo qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan shaqadan lagu igmaday anaga waxa ugu muhiimsan oo mandate ugu weyn wasaaraddan leedahay waa in dadka gaajada laga bixiyo food security-ga in wadankan la gaarsiiyo waxa ugu muhiimsan cunto isku filaansho cunto anaga waxa ugu muhiimsan oo target-kiigu yahay inuu arko legacy aan ka tago waxa weeye in dadkii aqoonteeda lahaa qofkii Ilaahay xoolo maago aqoon dadkeedu siyaaba Soomaalidu tiraahdaa inaan soo saarno dad aqoon u leh oo ka caawin kara beeraleyda Soomaaliyeed inay wax soo saarka ugu badan soo saaraan inaan wasaaraddaas aan mas'uuliyaddeeda hayo inaan shaqaale dad aqoon u leh ka shaqeyn kara caawin kara dadkii kala shaqeyn kara horumarka beeraha ka shaqeyn kara iyo inaan soo nooleeyno waa sidaan ku sheegay agabka wasaaradda lafteeda wasaaradda jirta inay tahay isma ahaan iyo shaqaale ahaan iyo human resource in la dhiso tan ugu dambaysan waxa weeye in beeraleydu markii ay wax beeraan wax soo saaraan waxay soo saareen in laga caawiyo in suuq u helaan suuq gudaha iyo mid dibadda labadaba saddexda taargado ugu waaweyn anagu aan ka shaqeynayno waa in wasaaradda la dhiso shaqaale ahaan iyo dhismo ahaan loo dhiso in beeraleydu lagala shaqeeyo wax saar badan ay soo saaraan aqoon ahaan loo dhiso kaabayaasha beeraha oo ay isticmaalayeen loo sameeyo iyo wixii ku caawinayo waxyaabaha loo isticmaalo haday machinery tahay haday tahay chemicals in iyagana laga hormariyo tan ugu dambaysan waa waxa ay soo saaraan in marketka suuq gudaha loo sameeyo mid dibadda loo sameeyo waxaan aaminsanahay Soomaaliya oo hadii ay dhalinyaradeeda ay ka shaqeeyaan wax soo saarka beeraha inay isku filnaansho gaari karto wadan Ilaahay si wax walba lagu cuno in qof Soomaaliya dhul Soomaaliya ku gaajoodo Ilaahay lama badin waxaan haysanaa khayraad nooc walba uu leeyahay dawladduna waxay ka shaqeynaysaa intii ay tabarteedu tahay in aan dadka Soomaaliyeed aysan ku gaajoon dhulkooda ay beeraha ayaan kowka waxa laga bixi karo iyo waxyaabo kale khayraadka xoolihii kalluumaysiga iyo iyaguna ay tahay in laga faa'iideysto marka anaga wasaaradda waxaan rabnaa inaan ka tagno aqoon iyo horumar iyo wax soo saarka iyo la kobciyo intaas ayaa taariikhda noo ah Ilaahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waa wasiirka beeraha iyo waraabka ee dalka Soomaaliya mudane Saciid Xuseen Ciid oo barnaamijka Dhulmar ugu waramayay magaalada Muqdisho xarunta dalka isla markaana waxaan rajeynayaa daawasha qiimaha leh inay su'aalo badan iyo wali macluumaad aad u fara badan oo inu baahneen aad ka heshaan waa barnaamijyo noocaas iyo kuwa la mid ah ayaan idin soo wadnaa deebayd wasiir aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa thank you for your time aad baan mahadsantahay